السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته walaashayna Sacdiya Daahir oo idiin wada muuqaal kale cusub ugu horeyntii waxaan idin leeyahay aad mahadsantihiin daawashada aad daawaneysaan muuqaaladeeda aad iyo aad aan kaaga mahadcelinahay haddaad nagu cusub tahay janaalka subscribe saar gambaleelka furo si muuqaal waliba aan soo gelino uu kuu soo gaaro mahadsanid insha Allah maanta waxaan sameyn doonaa pancake aad u macaan badan aadna u fudud insha Allah waxaan soo qaatay qalaadada ayaan soo qaatay waxaan kusoo shubay 4 xabo oo ukun waxaa kusoo shubay kaleeto nus koob oo maxaa la dhahayay sokora 5 qaado camal waa sokorta waa shiideena ilaa kalarkeeda uu ka noqdo cadaan kadib waxaa soo qaatay wax yariis oo meel dheer oo cusbo iyo insha Allah waxaan ku dari doonaa hal qaado oo qaadada shaac oo baking powder waxaa ku daray kaleeto aan idin tusin khal wax yariis oo qal ayaa ku daray marka sameynay waxaa ku daray oo kaleeto vanilla hadda insha Allah waxaa ku qasayaa kadib burka ayaa ku darayaa kadibna waa soo shiidi doonaa insha Allah waa ku walaaqayaa si uusan si fiican oo couscous amal u yeelanin kadib ayaa insha Allah shiidi doonaa si uu u noqdo liisho oo soft oo si fiican ukunta ayaa sidaas isku dhex galaan sidaas la rabaa sida keega camal inaad markaa dubaysid inaad sidaas camal ka dhigtid kadib waxaa soo qaatay weelash oo kajabka lagu shubo si qiyaasta rabo uu igu noqdo haddana birta ayaa waxaa marinaya saliid meel dheer ayaa marinaya pancake oo yariis rabaa inaan sameeyo oo masha Allah sidaas ayaan ku soo wadayaa ilaa masha Allah 6 xabo 4 xabo camal aan meesha inta deeqda ku sameeyo asagoo weyn waa sameysan kartaa laakiin aniga midkan yar ayaa rabaa si qurux badan inaan u sharaxo soo marka baalkan wuxuu ka saacidayaa inuu qiyaasta ku qiyaaso hadda korka uu ka qalal dab hoos ayaa ku karinayay hadda dhinaca kale ayaan u gudinayaa insha Allah dabkaada hoos noqdo sidaas yuusan kaa goonin sidaas ayaan kusoo dhameyn doonaa ilaa dhamaadka daawasho wanaagsan haddaad ka heshay like noo saar haddaad nagu cusub tahay gambaleelka furo subscribe noo saar una share garee asxaabtaada channelka inta daawanaysa iyo inta subscribe ka saaraysa isma lahan soo marka insha Allah sidan ayaan kusoo dhameeyay hadda waxaan tagaynaa insha Allah step ka labaad aan marin doono waxaa soo qaatay weel waxaa kaloo soo qaatay shukulaatada noocaas ayaa isticmaalaya nooca adag oo adag nutellada ma isticmaalin doono insha Allah nooca adag oo dhalaalayso oo hadii farinjeerka la geliyana adkaanayso ayaa isticmaali doonaa bacdaas yar ayaa waxaa kusoo shubtay maxaa la dhahayay shukulaatada qayb ka mid maanta dhan markaa shukulaato dhamaag timir iyo ukun aan u dhahays arka soo dhib ma lahaan saas igu gambinayso wax yariis ayaa dhexda kaga shubaya kadibna waa isku dhajinayaa bacdaas waxaa ugu qiyaastay waxay tahay qiyaasi niisha raba inay dhexda ka geliyo sababta marka labada xabo is saaray ka kala faafayso maxaa la dhahayay shukulaatada kadibna waa dhex gelinayaa geesaha dhan ayaa ka marinaya ilaa kalarkeeda dhan uu bedelmo maanta ma aqaan timir iyo ukun wax maloosh afka ii geliye timir iyo ukun la soo wada leys arkaa maanta dhan sidaas ayaan kusoo dhameyn doonaa insha Allah laba qayb ayaa ka dhigayaa qaybna saana waxaan u marinayaa shukulaatada qaybna dhexda shukulaatada ka marinaya laakiin korka ayaa waxa kaga sharaxaya shukulaatada aniga oo dhex gelin doonin fikradan hadday idin cajabisay sameey xaafada dadka loo sameeyo wiilasha gabdhaha ilmaha laga dhisciday inaba caadi ma aha wallahi markaas meed sida arki doontaa koob caano hadda u cabtid ama qaxwo dadka cabo qaxwada ku cabtid oo wax kale u baahantaa ma lahan casariyaad waa kuu toose
sidaan ayaa kusoo dhameeyey. Waxaa gelinaya talaajada. Qaybtii kale ayaa soo qaatay. Sidaan bisaa dhahayaa sababtoo dadaa jecleena jiro shukulaatada. Aniga dadka shukulaatada jecleena ku jiraa. Qaybtaas cadaanka ku jira aniga. Markana markaas oo talaajada kasoo bixiyey saxanka soo saaray sidaan ayuu noqday. Qaybtii kale idin tusana ayadana sida ay noqotay. Qaybtan 5 xabal ay noqotay. Waa laga tiro badan yahay. Karaali noqda hadda codkii hooseeyo waqti oo dambe habeen ayaan waxaa saaraya codka soo dariskina igu kacaan marayo. waxaan ku dhahay keegaga oo bacda ku sijilaysan marka taqaanida ku dhiso qurux badan yahay si uu macaan yahay waa isleeyihiin anaa aad u macaan yahay aadna u qurux badan yahay ilaa inta hadda soo gaartay waxaan ku leeyahay waa mahadsantahay astawdicukumullah fi amaanillah.